libaax baa xanuunsaday waxa uu yimid dawaca u timi waxay tii war maxaa ku helay wuxuu yidhi waa layga guuray baadi waan waayey qaan waan waayey halkaygaasaan iska jiifaa balooradoo dayoy bakayle iyo wuxuunii doon dadweynahan la hadlayaa bakayle iyo wuxuunii doon waxay tidhi nacas waar waxaan kuu keenayaa ka ugu hilibka badan habar dugaag oo dhan dameer bay u tagtay dameer waxay tidhi dameerow miyaanan ogayn boqorkee habar dugaag inuu xanuunsanayo oo sakaraad yahay haye xilka adaa lagugu wareejinayaa kaale bruybuulo raqaf 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 waa soo raaca waa yimi markuu isa soo taagay ayay tidhi salaan boqorka salaan madaxuu geliyey meeshii ku jiray dhufayskii labada dhagood buu qabto dayeerkuna waa xooge dib buu isu guujiyey labadii dhagood baa u baxay qaylu ka tolaay ma laysuunjalaya ma laysmishinaya dayay maxaad caynkaa igu gashay calaacal buu ku dhuftay nacas bay tidhi taajka xaggee lagaa saaraya labada dhagood baa marka hore lagaa goynayaa dabeedna taashkii unbaa ku hadhsanaayno nacasyow nacas kudaa taashkii oo keliya ayaa kuu hadhay ma saasa ahaa waa ina mari waa soo raacay luquntuu qabtay waa cunay hilibka waa axmaq libaaxu waa iska cunay basay ti war waslad noo soo go masuuhi waxaa ahay o dhan waryaa war rufuciisii waxaa ahay o dhan waayo madaxa ii soo tuur bay tidhi aan feenfeente madaxa ii soo tuuraa waa kaase maskaxda iga cunin buuri madaxa ay yara xanuunayee aan isku daweeye madaxa hayga cuni maskaxda hayga cuni waayahay maskaxdii baa dho maskaxdiina quyar bay waadan yahay waa cuntay yadiina way cuntay yadiina markii ay cuntay ee madaxiina cuntay maskaxdii ayuu yidhi nayaa balkeen maskaxdii masaytay nacas dhalay dameerku ma maskax buu leeyahay labada dhagood baad goysay masoo haddana dibku ugu soo noqday hadduu maskaxeeya haddana miyuu kuu iman lahaa